kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xulashada Daljir. waa maalinimo khamiis ah 7 bisha Afraad sanadku waa 2022 qodobada ugu doorka roon barnaamijkeena xulashada Daljirna waxaa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal oo sheegay in baarlamaanka la dhaarin karin iyadoo ay maqan yihiin xildhibaanadii Koonfur Galbeed. ciidamada booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay in ay sheegeen inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab oo ay ciidamadu toogteen kadib markii uu dil u geystay askari ka tirsan ciidamada milishiibiyada. waxaad kaloo maqli doontaan war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lagu sheegay in dalka looga caydhiyay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madera lana faray 48 saacadood gudahood inuu dalka uga baxo. haddaba madaxweynaha ayaa arintaasi ku gacan sayray. faahfaahin ayaan idin hayaa. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan barnaamijka aqooneedka tartan iyo tacliin oo xalay galay habeenkii labaad. tartan adag ayaa fooda la istaray. warbixin ayaa sidoo kale maqli doontaan fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan iyo waxyaabaha looga baahan yahay qofka sooman ayaad sidoo kale maqli doontaan. xubintii sicirka iyo suuqa ayaan barnaamijkeena ka marnayn. waxa uu si toos ah barnaamijku idinkaga imanayaa xarunta Daljir ee Boosaaso. Ramadaan Kariim. guud ahaan waxaa naga dhageysanaysaan xarumaha Daljir ee kuleeda Soomaaliya, Puntland, Galmudug, qaybo kamid ah Somaliland, Jubaland. waxaad kaloo naga dhageysanaysaan adduunka oo dhan webka Daljir, abka Daljir, stream live-ka cara idiloo dhan ee u diyaar garoobaha barnaamijkaas oo faahfaahsan. intaanaan guda galin sidii caadada ahayd waxaa kasoo hormari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijkeena. faadma degan ayaa u diyaara. mahadsanid deeqo. bismillaahi raxmaani raxiim. dagaal khasaare kala duwan uu ka dhashay ayaa waxa uu dhex maray ciidamada Galmudug iyo ururka Al-Shabaab waxaana uu ka dhacay deegaanka Qaraaro oo 50 kiiloomitir jirta magaalada Wisil ee koonfurta gobolka Mudug. goobjoogayaal ayaa warbaahinta qaar waxay u sheegeen in dagaalku uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada daraawiishta Galmudug ay weerar ku qaadeen goobo fariisin oo ahaa ururka Al-Shabaab. khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa dagaalkaasi ka dhashay. war ka soo baxay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu soo dhaweeyay dhismaha howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya. xogayaha guud ayaa waxa uu tilmaamay in qaramada midoobay ay ka go'an tahay inay si buuxda ay u garab istaag howlgalka midowga Afrika iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya. sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku booriyay dhammaan baahwadaagta Soomaaliyeed inay si degdeg ah ay u xaqiijiyaan maalgelin waarta oo loo fidiyo ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya. ugu dambeyntii xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ciidamada midowga Afrika ee AMISOM waxa uu ku amaanay guud ahaan 15 sano ee wadanka ay ku sugnaayeen hawlihii wanaagsanaa ay ka qabteen iyagoo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. ugu dambeyntiina ugu yaraan 2 shirkadood oo Hindi ah ayaa qorsheynaya inay Sacuudiga ay ka iibiyaan saliid ka yar intii caadiyan ay iibsan jireen kadib markii boqortooyada Sacuudigu ay sare u qaaday qiimaha iibka shidaalkeeda. 2 ilo wareed oo ay soo xigatay wakaalada wararka ee Reuters maalinnimadii Arbacadii ayaa arintan lagu xaqiijiyay iyadoo dalka Hindiya uu haatan sare u qaaday inuu saliid jaban uu ka soo iibsado dalka Ruushka. Hindiya ayaa waxa ay door bidaysaa shidaalka Ruushka iyadoo haysata ballanqaadiyo la xiriira inay hesho shidaal ka qiimo jaban kan ay hadda kala soo degto wadamada bariga dhexe. warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada Daljirna waa inta aan dib idinkugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka xulashada Daljir oo dhameystiran iyo deeqaladan deeqo. mahadsanid Faadumo. haatana qadaraadeyga bulshada adoo xiiqsanayo internet xawaare leh xujo maalmo kugu yahay waadigan xasilayo xuurto beeray oo degay golis baa xanaaniyo xasil kuugu filan oo ku xirmaysay internetkii ugu xawaare sareeyay. isticmaalka xirmooyinka internetka golis waxa ay kala yihiin daily ama maalin leh 25 senti waxay la mid tahay 300 MB
konton senti waxay la mid tahay 1 GB $1 waxay la mid tahay 2 GB $2 waxay la mid tahay 4 GB $3 waxay la mid tahay 6 GB $5 waxa ay la mid tahay 15 GB weekly ama toddobaadle 25 senti waxay la mid tahay 200 MB konton senti waxa ay la mid tahay 500 MB $1 waxay la mid tahay 1 GB $2 waxay la mid tahay 3 GB $3 waxay la mid tahay 5 GB $5 waxay la mid tahay 12 GB hagaag isku soo noqod wanaagsan dhageystayaal barnaamijka anigoo deeqaladana ayaa idinla socodsiin doona haddii allaha uu dalo ogolaado aan ku bilaabay war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dalka looga caydhiyay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madera waxaana la faray in 48 saacadood gudahood uu dalka uga baxo haddaba madaxweynaha Soomaaliya ayaa arintaasi ku gacan seeray warqad ka soo baxday Villa Soomaaliya ayaa arintaasi lagaga horyimi waa tan faahfaahin ku saabsan arinkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u aqoonsatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madera inuu yahay shakhsi aan dalka laga rabin isagoo ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa wakiilka midowga Afrika waxa ayna faraysaa in 48 saacadood gudahood uu uga baxo dalka warqadana ayaa ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku gacan sayray ra'iisul wasaare Roble in uu caydiyo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya warqad ka soo baxday xafiiska Villa Soomaaliya ayaa u qorneyd sidan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu bogaadinayaa doorka nabad ilaalinta ee midowga Afrika iyo qaybta lixaad ee ay ka qaateen dawlad dhisida Soomaaliya iyo dagaalka ay kula jiraan kooxaha ka dagaalama Soomaaliya wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madera iyo danjireyaasha kale ee caalamka waxa warqadda aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah ilaaliyaha madax banaanida dalka go'aan kasta oo taabanaya xiriirka aan adduunka la leenahay iyo joogitaanka safiirada shisheeye ee dalka waa mid saameynaya iskaashiga aanu la leenahay caalamka waana tallaabo u baahan in lagu saleeyo danta qaranka kuna tilmaaman wadatashi ma jiro ogolaansho uu bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo tallaabo looga qaadayo Danjire Madera mana jirto warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo tilmaamaysa in uu ku kacay falal ka hor imanaya madax banaanida Soomaaliya sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu farayaa wasaaradda arrimaha dibadda inay gudato waajibaadkeeda shaqo ayna gaarsiiso midowga Afrika in go'aankan la sheegay uu yahay mid aysan u dhameystirnayn dowladda federaalka kana soo baxay xafiis aanan lahayn awood uu kaligiis ku gaaro go'aan culayskan leh warqadda ayaa sidoo kale waxa lagu yiri siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena waa mid sal adag oo aan ku dhisnayn caadifad abaaldhac iyo dana gaara Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay aasaasiyaasha midowga Afrika oo howlgalka Soomaaliya ku bixiya dhiig iyo waqti ayna shacabka Soomaaliyeed ilaawi karin dalkeena waxa uu ku jiraa xilli ay doorashadu gabagaba marayso ayna lagama maarmaan tahay taageerada saaxiibtinimo ee Soomaaliya gaar ahaan howlgalka midowga Afrika oo gacan weyn ka geysanaya amniga doorashooyinka iyo xasilinta guud ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxa uu ka digayaa tallaabooyinka aan ka fiirsiga lahayn ee carqaladeyn kara amniga doorashooyinka iyo habsami u socodka hanaanka lagu dhameystirayo lagana fogaanayo wax kasta oo dib u dhac u keeni kara waana xilliga aanu ugu baahida badannahay inaanu ilaashano xasiloonida iskaashiga wadatashiga dhexdeena iyo tan aan la leenahay saaxiibada caalamka ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo waxa uu ku boorinayaa madasha wadatashi qaran in ay diiradda saarto sidii loo soo gabagabeyn lahaa doorashooyinka si wadajir ogol ahna lagu dhameynayo arrimaha taagan ee xalka u baahan si dalku uu hore ugu socdo warqadan ayaa jawaab u ahayd warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lagu caydhiyay danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya gudoomiyaha xilgaarsiinta golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa sheegay in koonfur galbeed oo ka maqan baarlamaanka inaan la dhaarin karin xildhibaanada golaha shacabka waxaana uu sheegay in marka hore la xaliyo khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soo arrimahaas ka hadlayna waa kan marka ugu horeysa waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka
dhamaystirka xildhibaanada baarlamaanka federaalka waxaan kaloo rajaynaynaa in ay ku guuleystaan inta dhiman inay dhammaystiraan. waxaan rabaa arrinta koonfur galbeed ku saabsan. waxay la tahay koonfur galbeed 5tii bishii abriil waxay soo qortay warqad ama qoraal ay kaga hadlayso khilaafka kala dhexeeya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. waxaan rabaa marka hore dib in loo xasuusto dowlad goboleedka koonfur galbeed doorkii ay ku lahayd khilaafyada dhici jiray muddadii doorashada dadban ay socotay. runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ahayd mar walba waxay u taagneyd sidii wixii caqabada ay yimaada xal loogu heli lahaa. khaasatan madaxweyne cabdicasiis wuxuu ahaa hormuud ka ahaa mar walba xal ugu helidda khilaafaadkaas in mar walba hore loo dhaqaajiyo doorashada si ay u hergisho. maanta haddii ay timid in laga hadlo doorashada dadban dowlad goboleedyadii dhammaan si isku mid ah ayay u qabteen, yacni habraac isku mid ah ayay ku qabteen. haddii ay saxan yihiin way wada saxan yihiin, haddii ay qaldan yihiin way wada qaldan yihiin. runtii waxaa muhiim ah koonfur galbeed waxay leedahay xuquuq la mid ah midda ay leeyihiin dowlad goboleedyada kale. waxaa saaran waajibaad midka saaran dowlad goboleedyada kale la mid ah, kama duwana dowlad goboleedyada kale. waxay kaga duwan tahay malaha. sidaa daraaddeed maadaama ay caddaysay in khilaaf uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaaraha waxaa waajib ku ahaa in uu u dhaqaaqo sida uu u qancin lahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya. waxaa kaloo jira baarlamanka federaalka ah haddii hal dowlad goboleed ay ka maqan tahay ma lagu tilmaami karo baarlaman federaal inuu yahay. sidaa daraaddeed waajibay ku tahay in uu raadiyo dowlad goboleedka uuna qanciyo, maadaama ayna jirin sida ku cad qodobka 51 ee dastuurka ku-meel gaarka ah sharci xeerinaya guddiyo ama habraacyo haddii khilaaf uu dhaco, khilaafkaasoo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada dhexdooda aanan weli baarlamanka uusan samayn, asagay waajib ku tahay inuu u dhaqaaqo oo xal uu raadiyo. qodobka ugu muhiimsan, shaqo badanaa lasoo qabtay. doorashada maanta waxay maraysaa heer gebagabay maraysaa. shacabka soomaaliyeed way ku daaleen dib u dhac badan oo doorashadan ku yimid. waxaan u malaynayaa dib u dhac kale uma dulqaadanayaan. waa la socotaan xilliga hadda lagu jiro waa xilli abaari ay jirto, xilli meel walbo caalamka ka mid ah asma ay ka taagan tahay. doorashadan inay dhammaato lasoo gebagabeeyo, muddadii loo qabtay baarlamankan in la dhaariyo 14-kana ay noqoto muddada qof walba wixii qaldana lagu sixi karo, wixii saxanna hore loo dhaqaajin karo. waxaan aaminsanahay in dowlad goboleedyada ama madasha mas-uuliyad iska saaraan arrintan ku wajahan arrintan khilaafka dhalisay oo ah dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha oo ah doorashada ku saabsan. arrinkaas inay tabashada south west ay qabto ay u istaagaan ayna xalliyaan sidii markii horeba south west ay samayn jirtay oo ay u xallin jirtay wixii khilaafaad oo dhaca. dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa guul. waxaan rajaynaynaa dhammaan dowlad goboleedyada inay u arkaan south westa cabdicasiis laftagareen oo hore saaxiibkooda u ahaa in maanta ay u arkaan in ninkii hore uu yahay, sida uu u shaqayn jirayna aan ku celceliyo ay ula shaqeeyaan. aad iyo aad umahadsantihiin. horta guddigiisaa la socotaan asaga laftiisa khilaafa hareeyey. waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa doorasho marka laga hadlaya, doorasho guddi waxaa xiga waa madax banaani. guddigan wuxuu la mid yahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ee dastuuriga ah oo xilli gaar ah loogu talagalay doorasho dadban inuu qabto. waxaa qaldan institutionada mid ka mid ah ha noqdo xafiiska ra-iisul wasaaraha
institution kale ha noqdee inuu farageliyo ayaa qaldan. guddiga waa guddi madax bannaan, laakiin awalba waxaa wax lagu dhisay wada ogolaa wax lagu dhisay ama consensusa wax lagu dhisay. doorashada hadda la qabtay ma aha doorasho toosan, waa doorasho dadban oo waxeedii oo dhan heshiis ay ku salaysan yihiin. maadaama guddiyada laftooda marka la magacaabayay qof keliya uusan magacaabin oo ay ahayd wada ogol lagu magacaabay, qaar isteedyada ay ka yimaadeen, qaar federaalka ay ka yimaadeen, qof keliya inuu go-aan ka gaaro oo xilal ka qaado, waxay ila tahay taasi waxay ka hor imaanaysaa madax bannaanida guddiga. marka meeshaan wax saxan ma jiraan, keliya waxay u baahan tahay in la wada fadhiisto, inta hartay wax yar waaye la wada dhammaystiro. laakiin haddaan dib ugu noqonno oo yaa saxan iyo yaa qaldan haddaan dhahno hadda, waxay noqonayaan wax oo dhan dee wax qaldanay isla noqonayaan. baarlamanka 14 haddii koonfur galbeed ay ka maqan tahay, baarlaman federaala lama dhaarinayo. waxaa la dhaarinayaa dowlado iskaashaday 4 dowlad goboleed baarlamankiisaa la dhaarinaya, because baarlamanka federaalka wuxuu ka koobmaa federal member stateska xubnahoodu ka koobmaa. marka baarlamanka federaalka waa in la dhaariyaa 14 jadwalkii ay u qabteen guddiga. taas macnaheed waxaa waaye wixii khilaafaada jira awalba waxaa lagu xallin jiray inay wada fadhiistaan ay xallin jireen. khilaafaadka in la xalliyo 14 doorashada ay qabsoonto. macnaheed haddii 14 la gaaro oo south west ay ka maqan tahay, taas macnaheed waxaa waaye baarlaman federaal meesha ma yaal. hagaag kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal. barnaamijku waa xulashada. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay nin ay sheegeen inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab oo ay ciidamada toogteen kadib markii dil uu u geystay sida ay sheegeen askari ka tirsan ciidamada. waaxda saddexaad ee geedda fardhiya ee deegaanka Garis Baaley asagoo hooshiisa qaran ku jira gudanayana waajibkii Allah faray Ramadaanka lagu toogtay gudaha waaxdaas baaro 12 iyo 30 daqiiqo oo aad wada ogtihiin xilliga ay ummadda muslimiinta ay u taagan tahay inay afurto, balse dhagar qabahan ka tirsan ururka nabaddiidka ama ururka u taagan baabi'inta magaca ummadda Soomaaliyeed uu u soo bareeray askarigaas oo gudanaya waajibkii Allah iyo kii ummadda ay ku laheedba ku toogtay gudaha waaxda saddexaad ee geeddi fardhiya ee deegaanka Garis Baaley. dhagar qabahan wuxuu watay sida aad idinkuba idin muuqato kaamirooyinka aad ku qabateen, wuxuu watay kaamirad uu ku cadaynayaa shakhsigan Soomane uu dilay. waxa kale uu watay bistoolad, wuxuu kale watay telefoon oo leenka loogu jiray waliba laguna amrayay inuu shakhsigaasi xilliga uu Soomaaliya uu dilo. haddaba ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ahba askarigaas Soomaaliyeed ee u taagnaa ilaalada deegaanka xilliga afurka waajibka Allah uu guteen u taagnaa ninka dilay, waxay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee joogay rugtaasi ku guuleystay in asaguna isla goobtii lagu toogto. ciidankaas oo ah kuwii uu istaagay ilaalada badbaadada iyo nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. waxaan leenahay kooxaha dhagar qabayaasha ah ee loo soo adeegsanayo inay baabi'iyaan ummadan in dhergaradkeedii iyo midkii u adeegayo. waxa kaliya askarigaas lagu dilay ma aha inuu dhar ciidan watay, ma aha inuu bini aadan ahaa, ee waxa lagu dilay inuu u adeegayo bulshada Soomaaliyeed xilli Ramadaan. taasna waxay muujinaysaa waxa la isku haystaa la isku dilaya inaysan diin ahayn, ee ummadda Soomaaliyeed baabi'inteedii loo soo istaagay dhalinyaradii Soomaaliyeed ayada gacanteeda la isku adeegsanayo. waxaan uga digaynaa dhalinta Soomaaliyeed ku mashquulsan hadda barnaamijka noocaas ah in ay u furan tahay gacanta ciidanka booliska Soomaaliyeed, gacanta laamaha amniga inay ku soo wareegaan waxaana ay ahayn diin. waa aragtaa nin sooman oo afuraya afurkii u taagan ee saligii salaada ku dul fadhiya inaad toogato diin ma aha, meesha wax yeelana ma aha. waxaan leeyahay ciidanka booliska Soomaaliyeed way ku guuleysteen dhagar qabihii rabay inuu fuliyo dilkaas in asagana sidaad aragteen isla goobtii lagu dilay. kuwa kalena waa ku daba taaganahay, waliina waa u taagnaanayna intii ay dhibic dhiga jirkeena.
يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرق الروح والجسد كلنا بالنور والمدد يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرق الروح والجسد كلنا بالنور والمدد. waxaa maalintii lixaad muslimiintu ay sooman yihiin bisha barakaysan ee Ramadaan. haddaba fadliga bishan barakaysan ee Ramadaan iyo waxyaabaha looga baahan yahay qofka sooman waxaa sharaxaya Sheekh Cismaan Maxamuud Xaaji. ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan waa bil barakaysan waa shahru Ramadaan waxa weeye shahru qur'aan waa bishii qur'aanka la soo dejiyey oo ilaahay waa shahru Ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay bishan ilaahay wuxuu soo dejiyey qur'aanka ilaahay soo dejiyey waxaa kaloo ilaahay subxaanahu bishan ku jirta habeen ka khayr badan kun bilood yani waa laylatul qadri khayru min alf shahrin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadana ku sheegay nabigu maxamed salawaatu llahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay bishan fadiiladeeda wanaageeda markuu ka warramayay wuxuu sheegay oo leeyahay salawaatu llahi wasalaamu xadiis qudsi uu ka warinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay كل عمل ابن آدم له عمل كست إن آدم إسقى إسكاله عمل والله إسقى له وحوي وأجيهي والله بالله بيا لكن صنك أنا جاء إسكاله بقوله الله سبحانه وتعالى أنا لك أبا المرني أدون كي وحديث كله يقول بقوله صلوات الله وسلام عليه وكهذا لي فضيلة بشني وأنا قيل من سمى رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني غفكي وحوي بشن رمضان صومه وحوي سبو إلهي فميسان إيمان احتساب الأجر لك السبية دنبقيسي هوري يكيسي وحوي دنبقيسي أيها لدافع أيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيشان قال دفع إيش هذا حكم بذا قيام الليل وحوي إن القف وتكده صلاة دي وحوي وأيضا وحوي وليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وحكوا لنا فضائش هذا وين كم ذا وبيشن كجرة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه شيء وحليه هاي مركي أي بيش صاقشوا وحال حلية وحوي وحال فرية الباب هذا الجنة وحال حلية الباب هذا النار وحال السلسلة يا شياطين أيال حلية والنبي صلى الله عليه وسلم عليه فضائل عظيمة أي له بيشة وبيشة وبال لقى إليه ولقيه إليه إن إلهي لقى عبد سبحانه وتعالى إلهي القرآن كتقول هاي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون marka waxa weeye bishan waa layna ku faryeelay waajib baynu ku tahay waajibkeeda waxaanu ka dhaxlaynaa oo ka faa'iideynaa inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsano xabsida ilaahay baa laga faa'iideeyaa oo dhaxaltooyadaynu ka helana ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah qofkan saa'imka lahu farxataan farxatun cinda fidrihi wa farxatun cinda liqaa'i rabbihi wuxuu leeyahay qofka saa'imka laba farxadood buu leeyahay farxad waxa weeye markii uu afurayo iyo markuu ilaahay la kulmay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo xadiiska ku jirtay ولقد خلوف فم السائم أديب عند الله من ريح المسك وحوي أفكى بخور قفك صباحي وكود دوني بنيه المسك أيوبيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحصولا وحي موجينيا إن يتهي من فضائل ما هو شهر رمضان شهر بشا وحوي وبشي وحوي بركي سنيد وبشا إنتاس وفضائل أي مشاهد نوعا أي يالانيسا ومهتنتين سحورته ما السحور وقت السحر بالله وقت السحر ووقت السحور ووقت صلاة كورية الصباح وحلا آخره وكنتم أيضا وكلا وحلا آخره بيكورية يعني وأدو أفر 8 ساعة بركة ميلها 8 ساعة برد الصبح نيمه أما كان 8 ساعة عبورة مالي 8 ساعة عبورة ووقت السحر كأ ووقت الله سبحانه وتعالى وحوي دعاء الأقبله سحورنا مقع لوجو قي لوجو مقع دري لكن وحي كلون 10 كنا قونتا 10 وحي وقتي أنا هين هي هرتوا صحوي يعني هرتوا وحسلايا هاي قف وحي النبي يقول مركو وحلي مكي هذا صندار سنة سد وهذا مكة كواد صندار فيها حكوف وجان في صندار فيها كل حال ديرو وصنك بيها لجنينيو إلا أن تكون صائما إن هذا صومانين marka waxaan isleeyahay qofka horta in laga dadaalo oo boqolkiiba boqol oo qofkaas iska ilaaliyo aad bay u fiican tahay qofka hadda dee waxa weeye mar hadduu dadaalayo ma waa waxa weeye oran mayno hadda waxa weeye soonkiisa waa ka jabay
laakiin ha iska ka fogaado ha ka dheeraado. waa sax weeye horta dhalinyaradaas laadhowga isticmaalaya oo social media ku mashquulsan ama dublad ciyaaraya ama waqtiga wax kale ku luminaya bishan waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto. waa fursad cadiima kusoo martay. salafkii dhaqan bay lahaayeen, dhaqanka ay lahaayeen waxay oran jireen 6 bilood oo waxa weeye Ramadaan kusoo aadan tahay ilaa Ramadaanna gaarsiiyo. sababta ay rabaan waa chance iyo fursad waxa bishatan waa amaasho dhan baa lagu laban laabaya, waa lagu badinaya. sida darteed waa fursad kaliya bisha kaliya wixii kale oo dhan inay dhalinyaradu iska xidhaan waqtigana ay ku lumiyaan bishaas. sababtoo ah waxa weeye bisha haddaad ku lumisid fawaa'id badan baad helaysaa. hadday noqoto salaadihii kale way ka badanaysaa, sadaqada kale way ka badanaysaa. bishana 2 shay oo muhiim ah baa jira oo in xoogga la saaro qiraa'at al-Qur'aan iyo idcaam ad-dacaan, in dadka la quudiyo iyo in waxa weeye qiraa'at al-Qur'aan la sameeyo, qur'aanka la akhriyo. marka waxaan oran lahaa dhalinyarada aan kula talin lahaa waqtigu waa laydin weydiinayaa, waa laydin kala xisaabtamayaa. nabiguna xadiisku la taala لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. قف كان laga dhaqaajin maayo ilaa 4 shay la weydiiyo maanta qeymsiideen waa imtixaanka ku guulaysan maayo. di umriga kamida waxa ka waqtigaaga kamida waxyaalahaas oo dhan xoolaha bixisay meesha ku bixisay jirkaaga wuxuu ku dhamaaday waxaas oo dhan lagu weydiinaya. marka waxa fiican dhalinyaradu inay waxa weeye ay waxaan ku lumin ajar badan waxa weeye ajarkaaga waa ka nusqaaminaysa. laga yaabo lacala soonkaagii in soonkii oo ka gudo laakiin ajar heli maysid. marka waxaanu soconaa waa ajar, waxaanu soconaa inaan baxsano, waxaanu soconaa inaan badbaadno. marka waxaan leeyahay dhalinyarada waxa hal iska daayo social media, hal iska xidho ciyaarta soo jeedka habeenka, hal iska xidho cibaado iyo quraan akhris iyo salaad iyo duco iyo sadaqo inta hala sameeyo. bisha tarawih waa meesha la rabo qofku waxa weeye waman qaama ramadaan iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama. yani meesha laga hadlayo qiyaamka la sheegayo qiyaam waxa tarawih weeyaan waa fadiila weyn bay leedahay. waa sunna adag weeyaan. waxa weeye ajarkaagii de waa isweyn iskaana maanta hadaa soo manay qiyaam leyl baa laga rabaa, salaad waxa weeye tarawih baa laga rabaa. tarawih waxa weeye aad fadiila weyn leedahay, lagama tagi karo, waa in la tukadaa. haddii xitaa aad jamaacada la tukanin gurigaaga ku tuko. waxaad samaynaysaa haddii aadan quraanka xitaa dusha ka haynin kitaabkaaga la soo kala bax, juz ku akhri, sidaa ku wad adoo kitaabkaaga la soo kala bax, mobilkaaga quraanka ugu jira la soo bax ku akhri usaa ugu akhri. afurku di waqtiga wax koodna waxa fiican in wax yar aad marka hore ku afurto salaada inaad ka cunto kaga raagtid sax ma jamaacadii ku dhaafto. marka wax yar baad cunaysaa biyahaaga iyo timirtaada hadda ku dhufatid soo tuko soo noqo. marka hagaag qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan isla soo gaadhnay. daljira ayaa qabataa bisha barakaysan ee Ramadaan barnaamij aqooneedka tartan iyo tacliin. xalay ayuu barnaamijku galay habeenkiisii 2. tartan adag ayaana dhex maray iskoolada isku wajahayay. haddaba warbixin waxaa inoo ka diyaariyay wariyahayaga Maxamed Ibraahim Geelle. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. barnaamijka tartan iyo tacliin oo ay qabato warbaahinta daljir ayaa xalay galay habeenkii 2 waxaana tartanka isku arkay 6 iskuul oo ka mid ah dugsiyada sare ee Puntland. qaybtii koowaad ayaa waxa uu tartanku dhex maray dugsiga sare ee Yaasiin Nuur Secondary School oo ku yaal magaalada Gaalkacyo iyo Qaran Secondary School oo ku yaal deegaanka Labilamaane oo hoostaga degmada Jariban ee gobolka Mudug. markii uu soo dhamaaday qaybtii hore ee tartanka waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga barnaamijka tartan iyo tacliin Maxamed Faarax Ciise Gaashaan. labada iskuul ee tartamayay Qaran Secondary School oo Labilamaane Jaribana iyo Yaasiin Nuur oo Gaalkacyo Secondary School oo Gaalkacyo natiijada kala heleen waxay ahayd qaran waxay ka jawaabeen su'aasha koowaad, su'aasha labaad iyo su'aasha saddexaad waxayna halkaa ku heleen 6 dhibcood. su'aasha afraad iyo su'aasha shanaadna way garan waayeen. ka faa'iidaysi soo maray oo 2 ana way gafeen. dugsiga sare Yaasiin Nuur wuxuu ka jawaabay su'aasha labaad, su'aasha afraad iyo su'aasha shanaad halkaana 6 dhibcood ayuu ku helay. hase yeeshee wuxuu ka faa'iidaystay 2 su'aalood ay gafeen dugsiga sare qaran oo afraad iyo shanaad ahaa oo min 1 dhibic ku helay. 2 dhibcood oo ka faa'iidaysi iyo 6diisii uu jawaabihii ka keenay
siddeeddaas dhibcood ayuu leeyahay sidaasaana caawa isaga guusha ku raacday yaasiin nuur oo 8 leh iyo qaran oo 6 leh. qaybtii labaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin ayaa waxaa fooda isku daray dugsiyada sare ee Cumar Samatar Secondary School oo ku yaal magaalada Gaalkacyo iyo Nugaal Secondary School oo ku yaal Garowe. markii uu soo dhamaaday tartanka labada iskuul ee Nugaal iyo Cumar Samatar waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga barnaamijka tartan iyo tacliin Maxamed Faarax Ciise Gaashaan. labada iskuul ee caawa qaybta labaad ku tartamayay laba iskuul oo magaca leh oo adag weeye dugsiga sare ee Nugaal oo qaatay iyo dugsiga Cumar Samatar Gaalkacyo oo qaatay mid waliba 5 su'aalood baa la weydiiyey mid waliba su'aalihii si fiican buu uga jawaabay 10 dhibcood buu helay 5 su'aalood oo min 2 dhibcood waa 10 iskuul waliba 10 buu helay sidaas ayay ku yihiin bareejo ama ku siman yihiin bacdama group waliba 4 ka kooban yahay oo laba kale ay u hadhay laba kooxood kale ayaa u sii haray laba dugsi oo kale inuu koox waliba ay aragto marka sidoodaas mid waliba buuntooda u haysanaysaa iskoolka kaleeto oo dhiman bay arki doonaan haddii ay muxuu ahaayey weli sii sinaadaan waagaas la kala saari doonaa laakiin haddeer mid waliba 10kiisii dhibcood ayuu haysanayaa labadu waa mahadsan yihiin. barnaamijka tartan iyo tacliin ee xalay waxaa ka soo qayb galay xildhibaan Cawil Daad oo ka mid ah baarlamaanka Puntland. qaybtii saddexaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin ayaa xalay waxaa ku tartamay dugsiga sare ee Mubtada Secondary School oo ku yaal degmada Buurtino ee gobolka Nugaal iyo Gambool Secondary School oo ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaal magaalada Garowe. markii uu soo dhamaaday tartanka labada iskuul ee Gambool iyo Mubtada Buurtino waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga barnaamijka tartan iyo tacliin Maxamed Faarax Ciise Gaashaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. labadii iskuul ee hadda ugu dambeeyey ee tartamay oo laba adag ahaa Muntada Secondary School oo Buurtino ah iyo Gambool Secondary School oo Gaalkacyo ee Garowe ah labadaasiba si fiican bay u dadaaleen waxayna kala heleen Muntada Buurtino wuxuu ka jawaabay su-aasha labaad su-aasha saddexaad iyo su-aasha afraad saddexdaas su'aalo si fiican buu jawaabay min 2 dhibcood buu ku helay halka 6 dhibcood buu ku helay wuxuu ka jawaabi kari waayay su-aasha koobaad iyo su-aasha shanaad su'aal ay gafeen Gambool oo su-aasha saddexaad ayay ka faa'iideysteen 1 dhibic bay halka ka heleen marka halka waxay ku leeyihiin 6 dhibcood oo su'aalahoodii ay ka heleen iyo halka faa'iideysiga 7 dhibcood bay leeyihiin Buurtino Muntada Buurtino. Gambool Secondary School waxay si fiican uga jawaabeen su'aalaha koobaad labaad afraad iyo shanaad 4 su'aalood oo si fiican uga jawaabeen min 2 dhibcood ay ku heleen su-aasha saddexaadna way garan waayeen waxay kaloo ka faa'iideysteen su-aasha shanaad oo soo dhaaftay muxuu ahaayey reer Muntada Buurtino 1 dhibic bay halkaa ka heleen su-aasha koobaad oo ay gafeen reer Buurtinona way ka faa'iideysan kari waayeen marka waxay leeyihiin 8 dhibcood oo ay ka heleen su'aalihii ay ka jawaabeen iyo 1 ka faa'iideysiya 8 iyo 1 isku dar waa 9 dhibcood bay halkaa leeyihiin guushiina caawa sidaasay Gambool ku raacday 9 dhibcood iyo 7 iyagoo ka helay. markii uu soo dhamaaday xalay barnaamijka tartan iyo tacliin ayaa waxaa hadal la siiyey xildhibaan Cawil Daad oo ka mid ah baarlamaanka Puntland oo xalay goobjoog ahaa barnaamijka tartan iyo tacliin isaga oo dardaaran siiyey cid kasta oo ka qayb galaysa barnaamijka tartan iyo tacliin. tartankaasi runtii tartan aad iyo aad u adag buu ahaa oo kii hadda ka sii horeeyay oo kale aad uga sii adag dhinaca su'aalaha su'aalo badan oo fiqiyo oo lagu haftay oo runtii dhaxalgalada jiray oo ay aad ugu diyaarsanay iskoolka Gambool waxaan rajaynayaa guushaas ay gaareen Gambool waan ugu hambaliyeynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin hambaliyo sidoo kale dugsiga ka qayb qaadashada tartankaas lagama guuleysan meel fiican bay yimaadeen waxaan rajaynayaa inay taasi dhiirigelin u sii noqoto iyo dadaal waxaan kaloo iskoolada iyo bahda waxbarashada oo aan ka mid ahay aan rabaa inaan ku dhiirigeliyo in inta badan la siiyo fursadaha ardayda in la siiyo waxay muhiim u tahay ardaydu inay ku mashquulaan inay wax akhriyaan
soona diyaariyaan waxa ayagu ku kalsoon yihiin kalsoonina ku helaan berri ka maalin ayagaan cidi gacmaha haynin ay socon karaan dhammaan hawsheennan caawa waxaan rajeynaya halkaas inoo ku eg tahay guddigii iyo warbaahinteena daljiro qaaliga iyo dhegaystayaashii iyo iskuulladii iyo wasaaradda waxbarashada runtii barnaamijkan qayb muhiida ka ah shirkadaha maalgeliya oo maxalliga ah intaba aad iyo aad baan u bogaadinaya una salaamayaa hawsheen intaas inoo ku eg tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale caawa jira tartamo xiiso badan oo u dhexeeya dugsiyada sare ee Puntland waxaana ay kulamadu isugu aadan yihiin sida tan Najax Secondary School oo ku yaal magaalada Boosaaso waxa uu la tartamayaa Salaaxudiin Secondary School oo isna ku yaal magaalada Boosaaso Sheekh Xamdaan Secondary School ayaa isna waxa uu la tartamayaa Imaam Nawawi Secondary School oo ku yaal Garowe Sheekh Cismaan Secondary School oo ku yaal magaalada Qardho waxa isagana fooda isdari doonaan Sheekh Xamid Secondary School oo ah iskuulka ku guuleystay sanadkii ugu dambeeyay barnaamijka tartan iyo tacliin ee warbaahinta Daljir haatan difaacanaya oo ku yaal Garowe Maxamed Ibrahim Gele warbaahinta Daljir Garowe mahadsanid Gele haatana waa xubintii sicirka iyo suuqa oo barnaamijkeena qaybka ayaan la Cabdullaahi Jaamac ayaa cabud waaq ka diyaariyay dhagaystayaal ku soo dhawaada xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imaanaysa stuudiyaha Daljir ee magaalada Caabudwaaq aan ku bilaabay ee kiishka bariiska 50 kiilo qiimihiisu maantay magaalada Caabudwaaq waa $28 kiishka burka ah waa $32 kiishka sonkorta ah waa $34 kartoonka baasada ah waa $8 caagada saliida ah waa $7 caanaha waaweyn ee daasada waa $16 dhinaca qudaarta haddaan eegno kiilada baradhada ah waa 70 senti kiilada basasha ah waa 70 senti kiilada yaayada marolida waa $1.5 dhinaca shidaalka baasiinka taangigu waa $24 naaftada taangigu waa $18 gaaska cuntada waa laba nooc waa 25 nooca kalena waa 45 iibka xoolaha geela qaliinka neefka ugu hilboon waa 600 ilaa 650 dibaaxa ariga neefka ugu hilboon waa 60 ilaa 65 neefka jarka ah neefka weyn 65 ilaa 70 neefka jaqiiqda ah ama raabaca waa 45 ilaa 50 dhagaystayaal xubintii sicirka iyo suuqa waa naga intaa waxaan idinkaga imaanaysay stuudiyaha Daljir ee magaalada Caabudwaaq anigoo ah Yaala Cabdullaahi Jaamac ayaa idin la socodsiinayay mahadsanid ayaan le iyada ayaa u dambeysay barnaamijkeenii xulashada Daljir oo Boosaaso idinkaga imanayay anigoo ladana ayaa idin la socodsiinayay waad ku mahadsantihiin dhageysiga barnaamijka inta aan kiisa aan ku kulmi doono Ramadaan Kariim xududkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta 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 iyo shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xijooga weeye bisha son xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta
waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye xariga goysa dambaab kama xishootee nafta xariga goysa dambaab kama xishootee xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiyo xantiyo soonta waa kaa xumaysee bisha soo xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta naarta lagu xoreeyaa xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa xuruntii firdows iyo xaadhintay ku waaraan xaakiinkaan baryaynaa hoyga xuural caynkee بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada daljir oo idiin saashay shirkadda isgaarsiinta ee golis waa doornimo arbaca bisha afaraad ee abril waa 6 sanadku waa 2022 qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka xulashada daljirna waxaa ka mid ah heshiis laga gaaray marxuum ganacsada ahaa oo lagu dilay magaalada caabudwaaq shahaadasiinta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maalintii shanaad ka socota magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ilaa 30 qoys oo dan yaro raashin loogu qaybiyey magaalada caabudwaaq